Bismillahirrahmanirrahiim. Anigoo Xasan Cabdi Shaalare waxaan halkan ka soo jeedinayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 30 bishii 7 2018 maaso aan ugu magac daray afka iyo dhulka hooyo. Waxaan ognahay ummad kasta oo adduunka saarani in ay leedahay dhul iyo af u gaar ah. Afkaas u gaarka ah ummad kasta waxa uu ku saleysan yahay hidaheeda iyo dhaqankeeda. Ummaduhuna waxa ay ku faanaan afka ay leeyihiin iyo hidahooda iyo taariikhdooda. Waxaa jira ummado badan oo caalamka jira ku nool misana aanan lahayn dhul u gaar ah iyo af u gaar ah, kuwaas oo wadaaga oo dadka kale la wadaaga luqadahooda kuna kala nool dhulal badan oo ayagu aysan lahayn. Haddaba dhulku waa hibo gaar ah oo uu siiyo Ilaahay ummadiisa, afkuna waa sida oo kale. Marka waxa aan jeclaystay qiimaha uu leeyahay afkeena hooyo ee afka Soomaaliga iyo dhulka Soomaalidu ay degto qiimaha uu leeyahay in aan wax yar ka taabto. Wax aynu ognahay dhulka Soomaalidu ay degto markii laga hadlayo geographical ahaan wuxuu u qaybsamaa 5 nooc. Cimilada dhulka marka laga hadlayo ama muuqaalka dhulka sida oo kale afka Soomaaligu wuxuu leeyahay waxyaabo la yiraahdo shibanayaal iyo shaqal, kuwaas oo kooba dhammaan afka ay ku hadlaan ummadda Soomaalidu. Marka laga hadlayo shibane waxaa la yiraahdaa waa xarfaha waaweyn sida shibanayaasha ba ugu horeysa ta ilaa iyo ya. Shaqal marka la yiraahdana waxa weeyaan waa xarfaha sida aada oo kale i o u iyo markay shaqal dheer yihiin a e i o u iyo kuwa kale oo la xiriiriyo sida hamsada oo kale. Haddaba waxaan isku taxalujiyay in aan ku soo koobo maasadaydan dhammaan inta uu ka koomo shaqal iyo shibane afka Soomaaligu ba laga bilaabo ilaa iyo ya iyo shaqalada a e i o u iyo a e i o u baan waxaan ku soo koobay maasadayda sida xarfaha 7 ah ee laablaama ama laba dhaca loogu soo koobo manala garaadba. Waa xarfaha ba da ra ga la ma iyo na sida loogu soo koobo tuducda ama oraahda dhahaysa manala garaadba ayaan waxaan ugu soo koobay maanso. Qayb ka mid ah maansadan waxaan ku soo koobay shibanaha iyo shaqalka afka Soomaaliga. Qof kasta oo Soomaali ahna wuu dareemi karaa meelaha ay ku jiraan koobitaanka aan ku koobay maansadayda. Haddaba sida oo kale waxaan soo geliyay dhulka Soomaalidu ay degto marka laga hadlayo geographical ahaan inta uu ka koomo. Isaguna waxaan ku soo qaatay maansadaydan waxayna u dhacaysaa sida tan. Waxa uu yiri abidkeed adduunyada waxa loo ordaayay aadana ku kala tagay akhris iyo qoraal baro istiriixdid aayahe. Ummadi waxay ammaan iyo ku heshaa ammaan badan aqoontoo la badiyo rabbigoo la aamino. Sideedana adduunyada haddii aanan lagu arag qorax ee bakeeniyo iftiinkeeda nuurka leh aqoon lama tixraacin, qalin iyo khadiiso cilmi loo adeegsado abbaar lama heleen oo jahli aafo inuu yahay ma qireen addoommadu ilbax lama ahaadeen. Shiddo kugu adkaato dhamac iyo kulaylba leh xoogga lagu itaalshay abid lagu muqunshaan aqli weeye ma ogtahay. Afka hooyo waa hodan anshax iyo asluub iyo islaamnimo u dheertaho hiddo lagu arooriyo gobanima agtiisa ah. Cilmiyada adduunyada asaaska laga helo afka aad ku hadashiyo ogow luuqad weeyaan. Ahaanshiyo lahaansho afkeenu lahaaday dad kale aysan lahaanin ilayska dhaxalkiisa iftiinka arageen ah ayaan ku ahaaday afkiisa lahaade. Baba u horeysa shibana idilkiisoo a'daan ku bilownaa shaqalka afka hooyo. Ujeedka hadalkeena tixba u astaan ah
oraahna tiraabta eray leh humaagsan idii meel u taagan shay qura ku astaysan uumiyuhu nala haysan afka aad ka helaysay markaad hoos u eegto ashqaraarto la yaabka ogow inagaa leh khaafiyado isku nuuc ah misna kala aag ah qoraal isku cayn ah abbaar kala jaad ah afka aad ka helayso ogow inagaa leh xeebta guban agteediiyo golis oo ilqabasho leh xeebta guban agteediiyo golis oo ilqabasho leh oogo iyo bannaan sare howd wada ogbaal liyo idil dooxadii nugaalin agagaarka dhoobeey weli deex ma aragteen dhulka aan tilmaamiyo qaar kaloo aan moogahay Soomaaliya u gaartaho waana deeq ilaah oo aadmi kala la siinina intaad hoos u eegtaan maad ku oonbaxdaano intaa weyna deeqdaan gidigeen inaga badan idiin maad ka dharagtaan dawarsiga ilowdaan isirdhaanka diidaan taariikh af diin uskun qura ah awoodda dhaqankeena hidde asal raaca xume ka asluubsan abbaan u lahayno eebbaa noogu deeqay marti u adeega magan xil iska saarka colaad hor istaaga nabad u ololaynta taageero isa siinta gob baan u ahaynoo xeerkaa aan tilmaamay ogow inagaa leh aflax aan ahaanoo danta guud u adeegneen tarbiyeeyo ubadka oo amba bixiya jahliga baas